wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland waxay soo bandhigtay 400 oo haamaha kaydiya oxygen-ka taasi oo loo qaybin doono dhammaan gobolada Somaliland isla markaasina lagula tacaali doono dadka u baahan oxygen-ka madashaasi ay ku soo bandhigtay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Umar Abdullahi Bedeeye xogayaha guddiga COVID-19 iyo qaar ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee Somaliland ugu waxa halkaasi ka hadlay isla markaasna hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland iyo mid ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee Somaliland maanta waxa runtii farxad weyn aniga iyo wasiirka iyo wasaaradda iyo guddiga ka hortagga cudurka coronavirus-ka dhamaantiyo farxad weyn oo ah in halkan aanu ku gudoomayno intii ugu badnayd cylinderiska oxygen-ta ee loo isticmaalo bukaanku markuu cudur ku dhaco neeftuna naqaskuna ku yaraado in badan baynu maqlaynay oxygen laan baa jirta dhibaata jirta oxygen-ta xaggeeda Somaliland ilaahay ma hadii weeye maanta marka laga bilaabo waa arkaysaan halkan waxa yaala 400 oo cylinder oo cusub oo ay wasaaraddu la soo degtay waxa kala soo socda inta in leeg baa soo socota oo bisha gudaheeda insha Allah inoo iman doonta intaasiba markay noo yimaadaan waxaanu filaynaa xarun caafimaad oo dalka ku taala Somaliland gudaheeda ku taala inaanay waay doonin kayd oxygen oo dambe guddida qaran oo arinta ka hawl gashay oo 300 xabo kamid soo iibisay 90 kamid ah soo iibiyay dhakhaatiirta reer Somaliland ku dhaqan Mareykanka 10 kamid ah waxa Yacmud Foundation oo ku jira 10 kamid ah waxa soo iibiyay hantilaha warshada Salaama oo run ahaantii aan aad ugu mahadnaqayno inuu hawl fududeynta iyo soo iibinta iyo keenida uu gacan la xal ka qaatay inta marka laga yimaado waxaad ogtihiin dadaalka joogtada ee ku jirno aynu qaran ahaan isku tashanay ummadaha kale wixii ama dawladahooda dhaqaalaha haysta ama wadamo kale ama hay'ado caalami ah wax kala qabanayeen inagu dhammaan wax walba qabsanay isku taga iyo isku ururka iyo inaan gudaheena isbaaranay ayaynu ku gaarnay waxaan aaminsanahay 400 haamood waxay dabooli doonaan baahida gobolada ay u qabaan oxygen inay helaan oxygen-tuna sida caadiga ma aha wax COVID-19 kaliya uun soo baxay in la isticmaalo dawaa waa wax laga maarmaan ah in laga helo xarun kasta caafimaad awalba lagu shaqeyn jiray laakiin baahidii baa intii hore ayaa ka badatay Idris Maxamed Aynaan Goobjoog Hargeysa.